shirkadda iibinta guryaha jaridda tigidhada iyo sameynta deganaanshaha wadanka Turkiga ee Wadi Group qaybteeda dalxiiska ayaa waxay shacab Soomaaliyeed oo wadankani ku nool iyo kuwa dalxiis u yimid ay geysay magaalada dalxiiseedka Kafatookiya waa meel goobo taariikh badan oo wadankani Turkigu uu leeyahay ay ku taalo waxaadna ku arkaysaa guryihii iyo dhismayaashii ay ku noolaan jireen dadkii hore qaababka ay wax u samaysan jireen iyo waliba sida ay buuraha u manaafacaadsan jireen shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay shirkadda Wadi Group qaybteeda dalxiiska iyagoona shirkadda Wadi ku amaanay sida ay u soo dhaweysay ayna u heleen dalxiis aad u qurxoon oo isugu jira nasasho iyo waliba dalbarasho halka ay soo arkeen taariikh aad u fac weyn oo wadankani Turkiga uu leeyahay anigoo ah Abuukar Cabdi waxaan ka imid magaalada Bristol waxaan ku soo degay Ankara waxaan haddana maanta joognaa annagoo turist ah magaalada la yiraahdo Kafatookiya waxaan soo qaaday Wadi Group waa dad aad iyo aad si fiican ay noo soo dhaweeyeen boqolkiiba boqol. Hello, assalamu alaykum. Magacaygu waa Maxamed Deeq waxa ka imaaday Finland. Ma sha Allah maanta waxa soo qaadanay maaragtay waqti aad u wanaagsan dalxiis magaalooyin badan ayaan ku soo dalxiisnay oo kamida maaragtay oo qadiimi ah dhismayaashii hore maaragtay meelihii Cusmaaniyiinta ma sha Allah dalxiis fiican soo qaadanay marka shirkadda Wadi Group waxaan leenahay waa mahadsantahay waa mahadsantiin adeega bulshada u haysan dhamaan dadka dalxiisayaasha waxaan leeyahay maaragtay si fiican hawlo shaqeeyaan waa dad adeegooda aad u wacan yahay magaratay dadku soo dhaweeyaan meelooyin badan oo maaragtay loo dalxiis taga oo maaragtay qof kasto taga maaragtay ka heli doona insha Allah marka waana mahadsantiin. Hi, I went with Wadi Travel Group today, went to Cappadocia, did a few itineraries, went to go-karting in Cappadocia, did a few trips and it was an absolutely amazing trip. I'd recommend you go with Wadi Travels. They were very accommodating, went down all the history taken, it was a great tour and yeah, come join the fun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. aad baan idin salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waxaan joognay reer Ankara waxaan maanta dalxiis soo gaarnay gobolka Kapadookiya dalxiiskaas waxa loo fududeeyay Wadi Group jawi degan qiimo jaban oo ku raali gelinaya oo aad iyo aad hooseeya ma sha Allah waxaan leeyahay soo dhawaada hamoogaanina wadan kasta aad joogto waxa laga dhigtaa wadankaaga si niyad iyo farxad lehna waa loogu dalxiisaa waxaan leeyahay hamoogaanina Wadi Group. magacayga waa Aisha waxaan kamid ahay dadka qaaska ah maanta nasiibka u yeeshay inay soo arkaan magaalada qadiimiga ah ee Kafatookiya nasiibkaas waxa noo sahlay oo naqaaday shirkadda Wadi Group waxaan soo aragnay meelaha qadiimiga ah ee leeyahay dalkan Turkiga taariikhdooda hore waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ka faa'iideysta fursadaan oo kale mar walba lama helo waxaan uga mahadcelinayaa Wadi Group iyo inta la shaqeyso waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أولاشين فلسطين أمير كنا سوغان دالك تركيا جارهان مقالة أنقرة ما أنتو حان دالحيس كتغني قبل لك كميدا قبل هذا تاريخيا أي ودن كتركيا وحن رجينا يعني كميد نقد دونتان وادي جروب وكمبني هذا نوضع ونمرنا يا ودن هذا تاريخيا دالك تركيا وأنا هاد علينا يا للنجرة كشقينسة وادي جروب. Thank you very much. السلام عليكم مقعي وورد عبد الرحمن waxaan ku noolahay Turkiga maanta waxaan nimi meesha Kafatookiya la dhaho waa kaade dalxiis fiican ma ka dhignay ma sha Allah si fiican ma u baashaalnay ya dadkana waxaan leeyahay ka faa'iideystay meesha quruxda badan imaada waa kaade shirkadda Wadi baa noo fududeysay xaggan keentay ma sha Allah si fiican ma wallahi maanta u baashaalnay waa kaade shirkadda Wadi ayaa shacabka Soomaaliyeed mar walba u haysa adeeg hufan qiimo dhimis iyo waliba goobo qurxoon iyo kuwa taariikhi ah oo shacabkeeda Soomaaliyeed ay ugu adeegayso in ay u dalxiiskayso waxaana xafiiska shirkaddu ku yaala magaalada Ankara ka soo horjeedka fooqa Kislay Zakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Som News Ankara.